maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil asaaka waxa ay ku fulisay Canshuur Cismaan Abuukar iyo Maxamed Cali Barrow kuwaas oo lagu eedeeyay inay dilal qorsheysan iyo weeraro ka geysteen magaalada Muqdisho. raggan oo dhowr jeer ka soo hor muuqday warbaahinta dawladda ayaa waxa ay fuliyeen weeraro ay maxkamadda ka hor qirteen, waxaana raggan weerarada ay geysteen qayb ka ahaa kuwii lagu qaaday hoteelada Saxafi iyo Naasaha Blood Labo oo ay ku dhinteen mas'uuliyiin oo ugu horeeyay wasiirkii arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Madoobe Nuuno Maxamed. waxa kale oo ay weerar qaraxyo ah ka fuliyeen tiyaatarka qaranka oo dad badan ay ku dhinteen, waxaana kamid ahaa dadkii ku dhintay Allah u naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad kaas oo u shaqeynayay telefishinka Universal. raggan ayaa sidoo kale weerar waxa ay ku dileen qaar kamid ah qoyska reer Dahabshiil oo gaari marayay isgoyska Digfeer ay ku weerareen sanadkii 2017 waxa ay isgoyska Fear Rome ee degmada Xamarweyne ku dileen wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batuule Axmed Gaballe iyo xubin ka tirsaneed ururka haweenka qaranka. saaka ayaana lagu fuliyay dilkii toogashada ah ay ku xukuntay maxkamadda ciidanka qalabka sida.